sanadku waxa uu ahaa 2011 markaasuna ay iskursadeen. Isla wax yar ka bacdi 2011 bishii 9aad Taria waxay ka qayb gashay tartanka orodada waxaana ay ku ordaysay keymaha Australia. Maalinta waxaanay ogeyn in keymaha ay ka dhacayeen qarax daba oo keynta dhan qabsaday, laakiin markii ay gudaha u gashay ayay waxay aragtay dabkii faraha badnaa oo dhinaceeda ku hareeraysan. Taria waxa loola cararay isbitaalka. Waxa la ogaaday jidhkeeda in 65% uu gubtay. Michael ayaa loo sheegay. Michael bariye ka bacdi waxa uu go'aansaday inuu shaqadiisa kaga tago. Taria waxa go'aankeedu u noqday in 5 bilood oo xiriir ay ku jirto isbitaalka. Laakiin Michael waxa uu go'aansaday intaas inuu garabkeeda ahaado. 5 bilood ka bacdi waxay ka soo baxday isbitaalka. Taria waxay aragtay in abuurteedu oo dhani ay isbedeshay. Taria waxay tiri markii aan ka soo baxay isbitaalka waxaan dareemay inaanan ahayn qofkaygii hore. Laakiin Michael ayaa wax walba igu qanciyay. Waxa uu ii sheegay in wax walbaaba adduunkan ay ka dhici karaan inta aynu ku nool nahay. Go'aan ayuu iga qaaday maalinta, waxaana uu igu yidhi garabkaaga ayaan ahay, mar walbana adiga ayaan kula jiraa. Laakiin si walba ay tahay labadayada waxaan isku nahay garab. Waxa uu ii siiyey garab aan caadi ahayn. Haddii aanu garabkaysi lahayn Michael, maanta waxaan noqon lahaa qof la yaaban adduunkan cusub. Waayo wax walba waa isbedeleen markii aan ka soo baxay isbitaalka. Taria iyo Michael maanta waa laba ruux oo isqaba, nolosha ay ku midoobeen. Waxay isku leeyihiin 2 caruur ah. Jacaylka ka dhaxaya dadyow fara badan ayaa u yaqaana mid aan caadi ahayn. Wadaad Soomaali ah ayaa la kulmay dad reer miyi ah oo degan dalka Kenya oo loo yaqaano Masayga. Masaygu waxa la sheegay inay yihiin reeraha ugu dib u dhaca badan caalamka oo aan weliba aqoon dunidu halka ay marayso. Dadkan reer miyiga ah ee Masayga ahi waxay la yaabeen qaabkan quruxda badan ee Quraanka loo akhriyayo iyo codkan aadka u macaan. Dhammaantoodba waxay dhageysteen Quraankii uu ku akhriyay sheekhan Soomaaliga ahi. Waa cod aad u macaan marka uu ku akhriyay Quraanka. Laakiin dhammaantoodba waxay daawanayaan afkiisa. Waxay la yaabeen hadalkan macaanka badan ee ka soo baxay afkiisa. Waana sababta ay dhammaantood ugu xunsan yihiin oo ay u dhageysanayaan. Qabiilkan Masayga ahi waxay jecel yihiin kaliya inay lo'dooda dhaqdaan oo ay ka dhex baxaan caalamkan la sheegayo inuu yahay mid casri ah. Waxaydan arkaysaa in dhammaantoodba ay daawanayaan sheekha Soomaaliga ah oo ay dhageysanayaan aayadaha Qur'aanka Kariimka iyo qaabka uu akhriyayo. Sierra Leone waa waddan ka mid ah qaaradda Afrika. Waxa lagu soo dhaweeyay aktarka caanka ah ee Idris Elba. Waxa uu helinaysay marwadiisa Soomaaliyada ah ee Sabrina Dore. Idris Elba halkan waxa uu yimid dalxiis. waana waddanka dhalasho ahaan uu ka soo jeedo Sierra Leone. Idris Elba waxa uu sheegay inuu mar walba jecel yahay inuu ku dalxiiso qaaradda Afrika wadamo badan oo kamid ah. Idris Elba waxa uu sheegay inuu Soomaaliga wax badan uu ka yaqaano oo ay bartay marwadiisa Sabrina Dore. waxaana hore uu balan qaaday inuu marun iman doono waddanka Soomaaliya oo ay ka soo jeedo marwadiisa Soomaaliyada ee Sabrina Dore. aktarka caanka ah ee Idris Elba maruu amaanayay qaaradda Afrika waxa uu sheegay in qaaradda Afrika ay ku yaalaan wadamo fara badan oo qani ah. waxaana uu yiri waa wadamo ku wanaagsan dhinaca dalxiiska, wax soo saarka beeraha, waana wadamo aan mar walba jecelahay inaan ku soo noqnoqdo oo aan mar walbaaba u yimaado dalxiis. waxa uu yiri Sierra Leone waa uu iga duwan yahay wadamada qaaradda Afrika oo waddankaygii, waana waddankan ka soo jeedo